بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن شاء الله تعالى halkan waxaynu ka sharxi doonaa ama ka faahfaahin doonaa in yar oo ku saabsan tuhfatul atfal kitaabka la yiraahdo tuhfatul atfal ee ka sheekeeya tajwiidka marka sheekhu wuxuu yiri dan ku bilowna muqadimada iska bilowno sheekhu wuxuu yiri yaqulu wuxuu oranayaa raaji ki rajaynayay rahmatal ghafuri naxariista إلهي إيو غفرق إيو دنبدافك إلهي رحمة الغفور رحمة أما نحريستا كي دنبدافك بدنا الله كي رجيني وحوري دوما مركز رجيني سليمان وشيخ مقعيس لذو سليمان هو إساقو الجمزوري وحو لو نسبيي أما كي يمد ميشا لذو الجمزوري وكان انتا وحو لي وحن ورنيا الحمد لله وحاسو وحن وجهي إلهي وحبا أيام هذا الحمد لله مصليا أنيقو كسليا على محمد رسول كيني عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين يو آله إهل كيس أنيقو كسليا يو من قف كستو تلا رسول كراعة عليه الصلاة والسلام وحلي يمد خير يا سنة يا كتاب يا قرآن وبعد انت كذب هذا النظم نظمي للمريد وحو كسابسنيها اما لوgu talagalay qofkii doonaya wuxuu doonayay inuu barto tajwiidka oo kitaabkaas oo ku saabsanaa ama muriidkana ku saabsan ama nidaamkana ku saabsan fil nuunti nuun marka wuxuu uga jeedaa nuun halkaasi wuxuu uga jeedaa nuun yani xukunka la yiraahdo nuunka nuuntuna ma aha isku mid wada nuun maaha laakiin wuxuu uga jeedaa nuuntii reebanayd haddaan iminka soo qaato nuunta haddaan soo qaato nuunka oon idhaahdo nuunkaasi waa nuun kasta maaha nuunka reeban ayaa la sheegaya marka nuunka reeban ee uu saaran yahay sukuunku waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo waxani waa maxay haddaad soo baratay higaadii kaasi waa sukuun inkastoo dadka qaar ku qaldamaan eberkeeda saas ee la dul saaray kitaabada oo kale kaasina waa sukuun laakiin iminka kitaabkeenan inoo qoray musxaf xafs can caasim badanka sukuunta waxaa loo isticmaalaa sidaas marka haddaad aragto nuunka reeban mararka qaarkoodna marka kitaabka marka la akhriyayo nuunka marka la reebo waxba lama dul saaro waxaa ka dhigan tahay adigoon waxba dul saarnayn oo waxba halkan aan saarnayn marka kaasina waa nuun reebane iska ogow insha allahu tacaala marka ku sheegaya sheekhu waa nuunka reeban uu leeyahay axkaamtii nuunka reebanayd marka nuunka reeban ugu jeedaa markaa waa nuunkaasi iyo waxaan kulan ku baraya uu leeyahay fi nuuni nuuntii iyo tanwiintii marka tanwiintana sidaynu wada ognahay waxa weeyaan haddaan kasoo qaado laynkan inuu yahay xuruuftii labada xarako oo dusha saaran laba xarako oo hoosta saaran iyo laba godaal saasoo kale ah haddaan iminka miim inoo soo qaado oon idhaahdo waxa saartaa tanwiin man baa loo akhriyaya haddaan miim soo qaado oon laba hoos dhow saarana waa min haddaan miim doomatiin saarana waa mun marka iminka halka waxaad ogaataa maadaama uu israaciyey tanwiin iyo nuun reeban marka tanwiintu horta asalkeedu waa nuun un nuunkaasi laakiin laguma dhawaaqayo oo dhawaq ma laha laakiin waa la qorayaa oo waa lagu dhawaaqaya cafwan oo nuun baa la akhriyayaa laakiin marka la qorayo waxaa la qorayaa laba xarako laba layn oo saas oo kale ah marka tanwiinta aad ogaatay horta asalkeedu waa nuun dhawaqiisii waxa weeyaan nuun baa lagu dhawaaqaya reeban waxaan lagu dhawaaqayaa sidii halkan oo kale imika man oo adigoo nuun akhriyey min adigoo nuun reeban akhriyey iyo mun adigoo nuun reeban akhriyey xagga dambe ka akhriyey oo miimkii iyo nuun baad isku akhriyeysaa iyo miimkii iyo kasrihii iyo nuun iyo miimkii damihii iyo nuun mun man min mun marka imika asalkiisi waa kaa horta tanwiintu labada tanwiinta iyo nuunka reebani horta saasay xiriir u leeyihiin oo kani waa nuun reeban kana waa nuun dhawaqiisii laakiin qoraalkii waxaa la qorayaa laba xariijmeedoo saasoo kale ah saas marka ay xiriir u leeyihiin labadoodu marka wuxuu leeyahay imika sheekhu fi nuuni nuuntii axkaamtii nuunta iyo watanwiini iyo tanwiintii iyo madadkii iyo walmuduud
iyo axkaam ulmad kaana waan kaaga sheekayn doonaa wuu leeyahy insha allah. marka imika sheekhu inta saddexdan wuu sheegay un laakiin axkaam kale ku jirta oo aan ahayn nuun reeban iyo tanwiin iyo maduud, laakiin kuwii ugu muhiimsanaayo uu sheekhu kitaabka xoogga saaray ayuunbuu soo qaatay uu soo sheegay. madkana caadiyan wuxuu kala baxaa laba qaybood siaan axkaamta madka ku sheegay, mad dabiici ah oo laba xaraka la jiido iyo madkii aan dabiiciga ahayn ka baxa xadkiisa oo ama 4 ama 6 ama 2 la jiido. marka imika waxa uga jeedaa halkan sheekhu madka dabiiciga ah ee labada la jiidaya waa marka asalkiisu yahay sida imika horta xuruufta madku waxa weeyaan alif iyo waaw iyo yaa. sababta madka keentaana waxa weeyaan hamze iyo sukuun, hamze iyo sukuun ka labada shay ayaa sababta madka keenta. sababta madka keentana xuruufta madkuna waa kuwan oo saddexdan. sababta madka keenta in la dheereeyo xadkiisii laga saarana waa labadaas. dad aragto sukuun waxaan jeedaa hamze iyo sukuun, cafwan hamze iyo sukuun oo imika asalkiisii markuu ahaano hamze iyo sukuun lahayn bal u fiirso. imika qaaf iyo alif waa ka alifkii, marka qaafkii fatxa ka horeeya had iyo jeer. haddaan idhaahdo qaaf iyo yaa, qaafkii waxa ka horeeya kasra mar kasta sida halkan inoogu cadi imika oo kale ya-dii waa taas. haddaan idhaahdo imika oo kale qaaf iyo yaa, cafwan yaquulu baan raadinaya, yaa iyo qaaf iyo waaw iyo laam. imika ya-dii waxa saaran fatxa, qaafkiina waxa saaran dama. yaquulu imika ujeedadan u soconaa waa ka qaafkii waxa saaran labada dhibcood lahaa dama, waxaana ka dambeeya waaw sidii halkan inoogu cad. waawgii waa kaas, marka laba xarakaa la jiidaya, marka lama dheerayn lagama saaraya xadkiisi. wuxuu leeyahay qoo qii quu. haddaanba ku akhriyay waa qaala qiila yaquulu, saddexdaas oo kale insha allahu tacaala. marka halkan wuxuu uga jeedaa sheekhu imika tanwiintii iyo madadkii oo wuxuu ku magacaabay buu leeyahy sheekhu wuxuu leeyahy samaytuhu waxaan ku magacaabay kitaabkan bituxfati alatfaal, hadiyadii caruurta. marka caruurtana ugama jeedo caruur ee qof kasta oon aqoon lahayn ama aqoontiisu aanay gaadhsiisnayn inuu cilmiga tajwiidka yaqaano ayaa la yidhahdaa caruur buu ka yahay. ama shay kasta oonad aqoonin oo wax kastoo jahli ka tahay ama aanad cilmika aqoon u lahayn waxaa la yidhahdaa waxaasi caruur baan ka ahay. can shaykhina wuxuu yidhi waxay ka ahaatay ama cilmigan waxaan ka keenay shaykhaygii almihiyi ee wanaagsanaa ee magaalada ka yimid mihiye, dil kamaali ee aqoonta u saaxiibka lahaa. ilaahay baa kamaal ah ee wuxuu uga jeedaa sharaf ahaan uu sharfayo sheekhiisii. arju waxaan rajaynayaa buu leeyahay an yanfaca inuu ku anfaco atulaaba dadka wax baranaya, walajrana ilaahay waxaan ka rajaynayaa buu yihi abaalmari ajarka inuu ilaahay siiyo, iyo walqubuula aqbal ayaan ilaahay ka rajaynayaa, iyo wathawaaba abaalmarin inaan ka helo ilaahay xaggiisa insha allahu tacaala. xaggaasina ku joojin doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.